nin Soomaaliya oo 23 jir ayaa laga helay meydkiisa agagaarka xero qaxootiga oo ku taala magaalada Tonsoosen ee ku taala dalka Norway. ninkan oo lagu magacaabo Nuur Cabdullaahi Aadan ayaa intii muddo 3 cisho ugu dambeysay balaa waxaana maalintii afraad booliisku ay ka heleen meydkiisa meel barafku aad ugu badan yahay sida uga fogeyn xeradii qaxootiga ee marxuumkan Soomaaliga uu ku noolaa muddadii 4 sano ee ugu dambeysay. haddaba xeradan qaxootiga ee uu ku noolaa ninkan Soomaaliga ayaa waxa ku weheliyay Soomaali kaliya dadyo qaxootiga oo ka kala yimid qaybaha kale ee caalamka waxaana ay halkaas ugu qabteen baroordiiq lagu xusuusanayay ninka 23 jirka Soomaaliga ee halkaasi ku geeriyooday. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله. دعاء سيان لنا markuu horeysa qof kastana runtii waxa waaye waxa uu sugay dhimashada walaalkii Nuur Allahumma naxariisto leenahay runtii in muddo halkan isla joognay waqti dheer balse tiisi ayaa imaatay waqtigiisa qofka doogalanay ma dhaafayo runtii daqiiqadna runtii wax kaloo ilaa ninkaasi ilaahay xaqiisa u aaday in muddo halkan isla joognay kulli dhibaato badan uu qabay dhibaatada uu qabay waxa kamid ah runtii nin aad u xanuunsanay oo ahaa حق مسكحة مركي ليرة مسكحة أدب وحنا وسنة مدير كان وجوي مركا ضيعت الآن ضيعات رنتي أيو أنت أيام ليك مع رنتي سينا والدي ولا لي ضدك سوما هلا القناة طبعا نحن صبر إيمان الله كثير كل والله صعباء كل والله كله الرياء مركب محمد تيشك نور إلهي صبر إيمان على وسيل ما تنبع نور أدينك إذا كمان من عنك دم وانا قدنتي marka nuurna waxa la degnaa muddo 3 bilood aan ku qiyaasi karo wuxuu ahaa nin aad u fiican ma sha Allah boqolkiiba boqol wallahi ninkaas asagoo xanuunsan ayaa kaamkan u yimid abaarna waan ku wada nooleen waxaan kaloo leeyahay ninkaas nin Soomaaliyeed ayuu ahaa wallahi nin iska xanuunsan uu ahaa nin iska xanuunsan oo jiran oo xanuunkiisa la garan karin أيها ماشي وجوجنا ومن متك أو ذاتك السعودال يكون يهين. We are all very sad because it is a tragedy what happened with him. This is a moment when we can think about everything that is good in our lives and not only about the bad things because bad things happens all the time. But I think when we stand in front of the death, it is a good moment to think about everything that is good. أنا هذا حكوا هذا ما خالد صاحبكي مركا اللي دحي محل محموم جورة وحنت كنا على مدة هذيك تقريبا لبس سنة مركا اللي دحي صاحبك وارد أنت أصول هنا يقول دبيسي أو مكان مركا برونك صار لا من حالة دحي نيجي نور هاي لما هاي وارد أنت بس أنت معنا هبين أنت معنا كدبة مركي هذا اللي سوشيك أو هذا أو ميت كيس أصلا لوق هذا البحر اللي سوشيكي وابس علي واب وهين جني جماعة because Somali أنت سكوا جوكتنا حوا Somali community سكوا حرام واسكوا رقبته مرك ولا لكن حدينا إن شاء الله ودون كان مدام أو كتجي أو دب كتجي دون كان دب كوي أو كتجي رجينا إلهي نحرستي جن إلهي نوافل جي مرك وررت وحواي وحنا تعسينا والدك ولا له ضدك Somali هلا قرابة طبعا نحن صبر إيمان الله كثير كل والله وصعداء كل والله كله الرياء مركب محمد تيشك نور إلهي سمر إيمان هنجا وسيل ما تنبع. waxaa ugu dambeysay kaas markii uu anu waxaan degan horta meel halkan ka dheereen aan saa u dheereen waxaan loo soo sheegay habeenada kamid ah in la soo hadleen wiilasha Soomaalida aniga telefoonka la soo hadleen ninkii Nuur ayaa maqan sidaa daradeed waxaan ugu raadis badan darteed iyo booliska oo dalka booliska qolada halkan internet loo sheegay adigu raadis kadib adigu ninkii meedkiisa waa la soo helay marka waxaan leenahay Allah wa inna ilaahi raaji'un kullu nafsin daa'iqatul maut ilaahay reerkiisa iyo dadkiisana samir iyo iimaan ka siiyo anaga Soomaalida halkan ku nool ilaahay samir iyo iimaan laga siiyo fariinta halkan ka diraya waxa weeye ummadda Soomaaliyeed u diraya meel kasta joogaanba waa arkaysan dhibaatooyinka ka dhacaya qurbaha ma aha wax 1 iyo 2 iyo 3 ku kooban waa wax caam iska noqdo meel kasta waxa ku dhinto qof Soomaaliyeed ama Yurub ha noqoto ama ha noqoto dal America ha noqoto waxaan fariinta dadka Soomaalida u diray ama dadka leaderska dadka dalka Soomaaliya la hogaamiyo inay dadkooda
si hoosa loo eego ama dadka dhibaatooyinka waddanka ka wada in iyaguna ay si wacan u eegaan dhibaatooyinka waddanka ka jira haddii kale sidan unbay ku socon doontaa waxaan u malaynayaa in ay dhici doonto mar Soomaali la waayi doono ama meel ay ku sugan la odhan doono qofkaasi Soomaali buu ahaa meel kasta intuu qof ku dhintay qofkaasi Soomaali buu ahaa. First of all, I want to thank for all the people who attended the ceremony today, and what Hassan has said already. The guy, he was living with us for a long time here, for almost 3 years, and he has been living some critical conditions. He was a little bit not normal, but he was just living in these conditions that we are living here, and he came from the motor while he was also sick, and what caused the sickness was just when he got the second negative. If the first negative he got from the government, as long as when he got the first negative, the man he was not normal. That's what Hassan has said. And also we want to thank for the cooperation for the people who have worked for a long time with the office. They have worked with us in a good conditions, and they have tried to keep Noor as safe as they can. Definitely the things was not like happen in the right way. So that's what we say, and we hope for his family and his friends to wish him a good luck. We are here today, and thank you to all of you that you came in order to commemorate Noor. We are all very sad because it is a tragedy what happened with him. muhiimaddu waxay tahay in dadkiisu ay ogaadaan meesha gudkiisa iyo gurigiisa ah inay geeyaan ay ku hubsadaan muhiimaddu waa intaas mideeda kale Noor in hadda ka warrano oo wax ka sheegno meesha ma ku jirto waayo intaana ka warqabashay Noor inta hadda meesha ku joogna haddii hal erag oo yiraahdo nin eragaas amba naga ka qosli kara dadka amba wax gal u noqon karo. We found him on the ice of a little water up in the mountain. Yeah. We have got a temporary answer. Temporarily. And it's no crime. And he is not suicide. He has frozen to death. Yeah. The whole case come to us about 1 week, I think. 1 week. Yeah. Som sagt, vi är från Somalian National TV, correspondent from Norway, and this young boy is dead in here. As a policeman, we are responsible around this area. We have been hearing that the body transferred to Oslo Hospital to check abduction. What have you heard anything from there, or what's going to be? What's the death of the house? We have got a temporary answer. It's no crime. And he is not suicide. He has frozen to death. So you're one of those who found the body? Not me personally, but my people. Yeah. How did you find the body? How did your friends find colleagues? We found him on the ice, a little water up in the mountain. How was this guy was like when he was here? How long have you been living here? You have already said, but exactly, can I know that? Exactly, he was here for 2.5 years. He came in July, and he left us in January. Is this boy was? Did he have any papers to stay in Norway or? I'm not allowed to talk about his case. This is something that only the person himself could say about. Is there any family friends who lives around this country in Norway? Did you know anybody you could to contact? Who do you call? He was a very lonely person, but always nice. Okay. I just remember him every time I was talking with him, he was smiling. So nobody was not calling you to ask you? He never left the camp. He never took a permission in 2.5 years. But we have very good Somali people in the camp, and the
some phone numbers from Somalia that the police get from us, and we hope that we are going to find his family in Somalia. Because from what we know, he has no family in North. Okay. Thank you. My last question is, as a policeman, the abduction of the body will probably take some weeks to know what's the cause of the death, yeah? The whole case comes to us about 1 week, I think. 1 week. Yeah. So But you- if there are some crime, Yeah. I will get immediately a phone. Okay. Yes. So it's not that. No. So is this because I'm from Oslo, and Oslo is the biggest place which there's a lot of Somalians who live there, Yeah. and there's mosques or if you're Muslim or. Did you think about that to contact the community in Oslo to tell what's going on here? Well, maybe the leader, yeah. Yeah, we did that. And I don't know the exact word in English, but it's Begravelsesbyrået from Oslo. Muslims, yeah. It's not a Muslim one, Yeah. but we are in contact with the leader of the biggest mosque in Oslo, and they are going to help with the washing ceremony and the grading ceremony. So we are taking good care about the religion and the culture that Muslim and Somali people have, Thank no you. matter where they are in. Thanks a lot. sida aad daawanaysaanna daawadayaal waxaanu ku sugannahay magaalo u jirta qiyaastii 3 saacadood marka laga soo tago magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway. waxaan la fadhiyaa nin booliis oo isagu ka mid ah booliiska magaaladan ka taliya aan wax ka weydiinaya arrinta ninka Soomaaliga ee 23 jirka ee ku dhintay meydkiisana laga helay xaafad ka mid ah xaafadaha area-dana. sidoo kale gabar iyaduna ka socota xarada qaxootiga ee Soomaalidu deganto Oslo sidaas oo kale 3 saacadood u jirta. waa meel sida muuqata baraf badan uu ka daay sida la sheegayna ninka Soomaaliga waxa laga helay meel baraf aad u buuxo meydkiisa laga helay. waxaana uu meydka waqtigan xaadirka ah ku maqan yahay waxa la yiraahdo abduction baaritaan in la baaro bal habka uu dhintay inay tahay mid la xiriirta criminal inay tahay iyo mid uu dhintay si normal oo markaas si dadkiisa loogu gudbiyo sida loo yahay ay sheegeenna cid la soo xiriirto family Soomaali ah ma jiro. sida awgeed ayaanu telefishinka qaranka ugu gudbinaynaa Soomaaliyeed in dadka Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya iyo qaybaha kale ee caalamka jooga ay daawadaan barnaamijkan oo haddii uu jiro qof yaqaano ninka sawirkan halkan ku yaala Soomaaliga dhowr sano 3 sano halkan joogay in bal ay la soo xiriiraan anigoo Xasan oo dabcan jooga magaalada Oslo haddii kale cid kale si loola xiriirsiyo booliiska iyo dadka magaalada Oslo degan ama u sameeyno xiriir aadna waad u mahadsantihiin. Body of Noor is in Oslo, and the police is working in order to find his family, to announce them about what happened with Noor. After we get a message or we get in touch with the family, it will be up to the family to decide if the body of Noor will be sent to Somalia or if it will be graved here. If Noor is going to be graved here, I already found out that the process is going to be in Fagernes. So we are going to organize so we go there all together and say goodbye for the last time. If the family will want him in Somalia, then again we are going to try to organize ourselves so the body will be sent to Somalia. These are the last news I get, and as I said, the police is working, and as soon as they have more information they will update us. geerida naxdinta leh ee ku timi ninkan muwaadinka Soomaaliyeed ee ku noolaa xeradan qaxootiga ee ku taala dalka Norway ayaan la ogeyn ilaa iminka sababaha uu dhintay iyadoo booliiska dalkan ay sheegeen in ninka Soomaaliga meydkiisa la geeyay cisbitaal ku yaala magaalada Oslo si loo baaro arrimaha la xiriira dhimashadiisan in ay tahay mid la xiriirta fal dambiyeed iyo inuu ninka Soomaaliga ugu dhintay halkaasi qabow daraadii. xasan saciid xasan raasta telefishinka qaranka eed madal dalka Norway.